بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta qodobo muhiim ah ayaan ku soo qaadanaa qodobka ugu horeeyana wuxuu noqon doonaa iyadoo ninka reer Senegal ee lagu magacaabo Zidane iyo xidiga kale ee ka soo jeeda wadanka Jarmalka ee Lorenzani ayaa markaa la sheegay in muran uu soo kala dhaxgalay waxaana saacadihii ugu dambeeyay la isla dhaxmarayay in xidiga reer Senegal laga yaabo in naadiga Bayern Munich uu ka tago kadib markii la sheegay in qolka labiska labadani xidig markaa ay isku dagaaleen waxa markaa haatan jira ayaa leeyahay in labadani xidig muran oo soo kala dhaxgalay laakiin Thomas Tuchel ayaa biyo qabo ku shubay kadib markii uu sheegay in Zidane uu ilaashan doono uu yahay xidig caalami ah oo kubadda cagta heer wanaagsan markaa ka gaaray sida uu sheegay tababaraha naadiga Bayern Munich ee dhawaan markaa qabtay naadigaasi ninka lagu magacaabo Thomas Tuchel waxyaabaha kale haddii aan fiirino iyadoo ninkii Casemiro ahaa naadigiisii guuldarro la dhadhansiiyey haddana waxaa Casemiro waa xidig muhiim ah oo markaa u ciyaara naadiga lagu magacaabo Manchester United haddii aan fiirino ninkii Ronaldo ahaa sida la sheegayba naadiga aan la kaseenin ay ka soo jeeda dalka Sacuudi Carabiya ee Al Nassr ayaa haatan markaa noqonaysa naadi wargeysyada iyo sidoo kale meel kasta looga faaloodo waxaana haatan markaa la soo warinayaa in ninka markaa haatan tababaraha waa sida la sheegay ee lagu magacaabo Rudi Garcia in naadiga markaa uu ka tagi doono waxaana lagu soo qaadanayaa Ronaldo isagoo nambarka 7 markaa guddoonsiinaya ayna u muuqataa in ninkani markaa uu ka tagi doono waxaana sabab markaa u noqday in naadiga Al Nassr caalamka laga daawado wargeysadana markaa lagu xardho ninka CR7 ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ayabaha kale haddii aan fiirino ninka lagu magacaabo Marco Asensio ayaa markaa heshiiskiisa wuxuu dhici doonaa naadiga Real Madrid waxaa leeyahay bisha June ayuu dhici doonaa sida awgeed naadiga waa inay ka qalqaalisaa heshiis cusub ayaa markaa leeyahay ninka lagu magacaabo Vlahovic waxaa markaa laga yaabaa in naadiga Juventus mustaqbalkiisa haatan markaa ay ka hadasho walow xidigani uu yahay xidigaha ugu muhiimsan ee naadigani markaa u ciyaara haddii aan fiirino ninka lagu magacaabo Marcelo Sabitzer ayaa markaa la sheegay in wacdaro markaa uu dhigay laakiin wacdarihiisii naadiga Sevilla waxa biyo qabow oo dajiyay naadiga weerarkeedii goolasha markaa ay lahayd tababaraha naadiga lagu magacaabo Manchester United ninka lagu magacaabo Erik ten Hag xalaytu waa il doofay isagoo 2 gool laayo isdhigtay Bruno bixi Sancho bixi xidigihii dhammaan ayuu garoonka ka bixiyay waxaana markaa sabab looga dhigay in bedelka markaa uu qalday waxaana xidigii hore naadiga Manchester City Sky Blue ninka lagu magacaabo Naves ayaa gool markaa ugu shubay laakiin Miguel ayaa loo eedeeyay goolkii angoolka ahaa oo xalaytu digeeya markaa uu qabab waayay leeyahay ninka Martinez dhaawiciisa naadiga Manchester United hoos u dhac aad u ballaaran ayuu ku keenay laakiin goolal iyada ayaa cuntay oo ninka Antonio xidiga reer Brazil la arkayay isagoo birta markaa ku dhufanayay Juventus waa badisay naadiga lagu magacaabo waa naadiga Juventus hal iyo eber waxay kaga badisay naadiga Sport Lisbon Roma waa la qaraacay naadiga Feyenoord ayaa markaa qaraaday Manchester United iyo Sevilla kulamada la soo calaamadeynaya ayay kamid ahaayeen 2-2 ayana markaa gashay Lisandro Martinez waxaa la arkayay isagoo garoonka markaa laga sii bixinayo Jurgen Klopp wuxuu leeyahay waxaan ugu mashquulno meesha ma hayno ninka lagu magacaabo Jude Bellingham wuxuuna leeyahay xidigani markaa ma aqaano naadiga Liverpool waxa ay ugu mashquulayso ayuu markaa leeyahay Carlo Ancelotti waxa laga yaabaa in heshiis cusub markaa uu saxiixo waxaana afkiisa markaa laga hayaa in naadiga markaa uu doonayo inuu wali markaa sii joogo xilli ciyaareedka soo aadan ma joogi doontaa ayaa markaa la weydiiyay wuxuuna yiri absolute waxa laga yaabaa inaan sii joogo isagoo hadalka markaa soo koobaya ninka lagu magacaabo waa Carlo Ancelotti tababaraha naadiga Real Madrid haddii aan fiirino Jurgen Klopp wuxuu leeyahay tani waa inaan ka fikirnaa taasna waa inaan ka fikirnaa waxa haatan ahayno iyo waxa soo socda waa inaan ka fikirnaa ayuu leeyahay tababaraha naadiga Rediska waa ninka lagu magacaabo Jurgen Klopp waana waxyaabaha kubadda cagta haatan ugu dambeeyay iyadoo Manchester leeyahay tababaraheedii irduufkii lagu yaqiino Solskjaer iyo sidoo kale tababarayaal kale ayaa leeyahay ayuu haatan markaa bilaabay naadiga Manchester United xalayto kubaddeeda wax laga sheego markaa lama haynin ayaa leeyahay laakiin waxa uu ilduufay ayaa leeyahay tababaraha naadiga waa naadiga lagu magacaabo Manchester United ninka lagu magacaabo Erik ten Hag ayaa leeyahay ilduufkii ugu ballaarnaa isbuucani ayuuna markaa galay tababarahana ayaa markaa leeyahay La Ligaha naadiga lagu magacaabo Rayo Vallecano naadiga Osasuna ayaa markaa ciyaari doona Zereda naadiga Kemos naadiga Empoli
ناديجا اسبيسا ناديجا لاسيا بوندسليغا شالكا اوفو ناديجا هيرتا بارلين ليغ 1 ka ناديجا تولو ناديجا ليون ayaa markaa ciyaari doona wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagtana halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa inta ku kulmi doona midana nabadgelyo